bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee gudaha Soomaaliya qodobada daawad doontaana waxaa qayb ka ah dawladda waddanka Jabuuti ayaa walaac xooggan waxay ka muujisay isku xirka dekedaha Somaliland iyo dalka isu tagga Imaaraadka Carabta hadda waa maxay waqti xaadirkan qorshayaasha ay doonayso dawladda waddanka Jabuuti inay kaga hortagto isfahamka waqti xaadirkan u dhaxeeya dawladaha Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Somaliland waxaan kula wadaagi doonaa xogta rasmiga arrimahaasi ku saabsan iyo sidoo kale walaaca waqti xaadirkan dawladda Jabuuti ay ka qabto in gebi ahaanba macaamiisheeda ay maraan dhinaca Somaliland oo sii kordhaya dawladda Itoobiya oo waqti xaadirkan u muuqata in gebi ahaanba ay u wareegayso dekedaha Somaliland sidoo kalena gaaska dabiiciga ah ee dhawaan laga helay gudaha dalka Itoobiya si gaar ah deegaanada ismaamulka Soomaalida dhammaantiisba laga dhoofin doono dekeda magaalada Berbera waxaan kula wadaagi doonaa waqti xaadirkan waa maxay walaaca ugu weyn ee dawladda Jabuuti ay ka qabto dhinaca Somaliland tallaabooyinka waqti xaadirkan uu qaadi karo Ismaaciil Cumar Geelle oo la ogaaday iyo sidoo kale Somaliland oo iyaduna doonaysa in arrimahaas ay ka hortagto qodobada kale xasaasiga ah daawad doontaan waxaa qayb ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lacag malaayiin dollar waxay ka codsatay hay'adda lacagta adduunka iyo World Bankiga haddaba waqti xaadirkan maxaa keenay in lacagahan malaayiinta ah ay dalbato dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula wadaagi doonaa xogta rasmiga ah ee arrimahaasi ku saabsan qodobada kale xasaasiga ah daawad doontaan waxaa qayb ka ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka socda kulamo kala duwan oo u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo dhammaan golaha wasiirada kulamadan waxaa looga hadlayaa safarka madaxweynaha Soomaaliya dhawaan la filayo inuu ku tago magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in la isku soo hadal qaaday qaabka loo sugayo amniga madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha inta ay ku sugan yihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaase ka jira in maamulkeesa si khaatumo lagu wargeliyay in magaalada ay soo gaari doonaan ciidamo badan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo sidoo kale ilaalada madaxtooyada ee loo yaqaano koofiya casta si ay qayb uga noqdaan sugidda amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kula wadaagi doonaa xogta rasmiga ah ee arrimahaasi ku saabsan qodobo kale oo xasaasi ah idin qarinaya ayaa qayb ka ah balse marka hore soo dhawaada laagsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada sidoo kale qayb ka noqon saaxiibada ku xiran waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 20,000 oo subscribe kaliya safarkeena adiga ayaa ka dhiman ee sulka saar oo subscribe inoo saar channelka mahadsanidin waagaga aynu ku bilowno sida ay xoguhu tilmaamayaan dawladda waddanka Jabuuti ayaa walaac xooggan waxay ka muujinaysaa dhawaan qad isku xiraya dekedaha Somaliland iyo sidoo kale dalka isu tagga Imaaraadka Carabta oo dhawaan la sameeyay qadkan ayaa waxa uu fududeynayaa in labada dekedood ee Abu Dhabi iyo sidoo kale Somaliland ama Hargeysa ay wada shaqeeyaan waana dekeda Berbera oo si toos ah loogu xiray dhammaan dekedaha ku yaala dalka isu tagga Imaaraadka Carabta kuwaasi oo waqti xaadirkan kamid ah dekedaha ugu mashquulka badan bariga dhexe iyo caalamka tallaabooyinkan ay qaaday shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekeda magaalada Berbera ayaa maalmihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay laga shaqeynayay waxaana qorshayaashu ay ahaayeen in la isku xiro waqti xaadirkan dekedaha Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dekedaha Somaliland si lamida Jabuuti ayaa walaaceedu waxa uu sii kordhayay bilihii ugu dambeeyay kadib markii Itoobiya ay qaaday tallaabooyin kala duwan oo ay xiriir kula sameysay Somaliland waxaana xiriiradaasi qayb ka ahaa sidii gaaska dabiiciga ah iyo sidoo kale waxyaabaha kale Itoobiya ay uga dhoofsan lahayd dekeda magaalada Berbera waxaana kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya una dhaxeeyay ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha Somaliland la isku soo hadal qaaday qodobo badan oo ay qayb ka tahay sidii gaaska dhawaan laga helay deegaanka Soomaalida Itoobiya looga dhoofin lahaa dekeda magaalada Berbera Somaliland halkaasi ay faa'iido badan uga heli lahayd arrimahan oo idil ayaa la sheegay in gebi ahaanba dawladda waddanka Jabuuti ay walaac xooggan ka muujinaysa waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli kala horeba isku dhaceen shirkadda DP World ee gacanta ku haysa qaar ka mid ah dekedaha Somaliland iyo Puntland sidoo kalena gacanta hore ugu heen jirtay dekeda ku yaala dalka Jabuuti laakiin DP World iyo Jabuuti waa isku dhaceen ugu dambeynna shirkadaasi gebi ahaanba waxaa laga saaray dalka Jabuuti shirkaddan Imaaraadka laga leeyahay ee DP World ayaa waqti xaadirkan waxay ka faa'iideysanaysaa ayaa la leeyahay fursadaha ay ku haysatay geeska Afrika si gaar ah Somaliland iyo Puntland waxayna doonaysaa in gebi ahaanba ay ka argudato dawladda waddanka Jabuuti oo kansashay heshiisyadii u dhaxeeyay shirkadaasi iyo dawladda waddanka Jabuuti waxaana shirkadu marba marka ka dambeysay ay qaadaysaa tallaabooyin looga careysiinayo Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale guud ahaanba dalka Jabuuti walwalka ugu badan ee waqti xaadirkan uu qabo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu yahay
inuu dhumin karo mid ka mid a macaamiishiisa ugu waaweyn ee waqti xaadirkan waana dalka Itoobiya waxaana Itoobiya inta badan ay adeegsataa dekedaha dalka Djibouti maadaama Eritrea aysan adeegsan karin laakiin hadda Itoobiya iyo sidoo kale isfahamka waqti xaadirkan ka dhaceeya Hargeysa ama Somaliland ayaa wax u muuqda ayaa leeyahay mid gabi ahaanba meesha ka saari kara dhaqaalihii Djibouti ka soo gali jiray dekedaha dalkaasi oo isticmaali jirtay dowladda Itoobiya in ka badan 150 milyan dad ka badan oo Itoobiyana ayaa waxay wax kala soo degaan oo miciishada qudul daruuriga ah waxyaabaha kale iyo sidoo kale dhamaanba ganacsigooda inta badan uu soo maraa gudaha dalka Djibouti-na sidaasi waxay ku heli jirtay faa'iido ballaaran waxa arinta la sheegay in Djibouti ay doonayso inay qaado tallaabooyin kala duwan kuwaasi oo looga hortagayo waqti xaadirkan dhaqdhaqaaqyada dhanka diblomaasiyadda ah oo ay wado Somaliland waxaana dowladda waddanka Djibouti la sheegay in go'aamo ay ku gaartay in Somaliland laga hortago oo gabi ahaanba meesha laga saaro ama la burburiyo tallaabooyinka waqti xaadirkan Ismaaciil Cumar Geelle uu ka fakarayo waxaa qayb ka ah sida ay xuquuqu tilmaamayaan sidii loo xoojin lahaa jabhadaha waqti xaadirkan Djibouti ay doonayso inay ka abuurto deegaano ka tirsan galbeedka Somaliland si gaar ah gobolada Awdal iyo Salal oo magaalooyinka Boorame iyo sidoo kale Saylac ayuu Ismaaciil Cumar Geelle waqti xaadirkan waxa uu doonayaa inuu fadqalala ka abuuro si gabi ahaanba looga hortago Somaliland iyo jiritaankeeda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Djibouti ayaa inta badan waxay iska kaashadaan sidii Somaliland meesha looga saari lahaa waxaana jiray qorshayaal ballaaran oo fulintooda waqti badan uu qaatay waxaana qayb ka ahayd in Somaliland la kala qaybiyo si loo burburiyo ama meesha looga saaray xitaa maamul awood badan oo gobolada waqooyi ka hirgala qorshayaashaasina waxaa qayb ka ahayd in la dhiso ama la hirgeliyo maamulo 3 ah kuwaasi oo laga hirgelinayo gobolada waqooyi ama sidoo kale Somaliland waxaana maamuladaasi la sheegay qayb kamid ah in lagu guuleystay oo dowladda Djibouti ay aad ugu faradhudhubneed ka shaqaynta barnaamijyadan waxaana qayb ka ah in deegaano ka tirsan bariga Somaliland laga dhiso maamul ugu dambeynna waa laga dhisay oo waqooyi bari ayaa halkaasi laga hirgeliyay waxaana waqooyi bari uu ka kooban yahay gobolada Sool Sanaag iyo qaybo ka tirsan Togdheer si lamid ah waxa uu qorshe u ahaa in maamul laga hirgeliyo Awdal oo halkaasi laga sameeyay maamul la yiraahdo Awdal State waa galbeedka Somaliland qorshahaasi waqti xaadirkan dhirintiisa waa uu socdaa Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu doonayaa in Somaliland uu si toos ah isugu soo qaawiyo sidoo kale uu la dagaalamo qorshaha saddexaad ayaas ahaa maamulka loogu magac dari doono waqooyi galbeed oo isla Somaliland in laga dhisay la rabay waxaana maamulkaasi iska lahaan doona sida ay xuquuqu tilmaamayaan ama dukumeentiyada ay muujinayaan beesha dhexe ee Isaaq Samaroon ayaa la doonayaa in maamul loo dhiso meelaha arti daarood ee waqooyiga Soomaaliya degan maamul ayaa loo dhisay oo waqooyi bari ay heleen si lamid ah waxaa la doonayaa beesha dhexe ee Isaaq in loo dhiso maamul loogu magac daray waqooyi galbeed Soomaaliya arrimahan oo idil Somaliland waa ay dareensan tahay Cabdiraxmaan Cirana waxa uu ciyaarayaa shax siyaasadeed ayaa la leeyahay waxa uu doonayaa in gabi ahaanba uu ka hortago qorshayaasha waqti xaadirkan ay doonayaan in gabi ahaanba Djibouti iyo dowladda federaalka Soomaaliya isaga kaashadaan sidii loo burburin lahaa Somaliland si lamid ah Djibouti kaliya ma ahan ayaa la leeyahay inay ka shaqeynayso Soomaalinimada iyo isku heentooda ee markasta oo Somaliland ay kor u kacdo ama aqoonsi u soo dhawaado ama xitaa ay la macaamisho dalalka jaarka la ah waxay dhibaato ku tahay Djibouti oo dadkeeda 900 milyan 900 kun oo qof ay ka yar yihiin sidoo kalena dhulkeeda uu aad uga yar yahay Somaliland markasta waxa leeyahay Somaliland horumarkeeda waxa dhibaato u arki kara ama dhibaataba ay ku tahay sida saxda ah dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu doonayaa in arrimahan oo idil uu ka hortago waynu arki doonaa qodobkan iyo waxyaabaha ka soo kordha dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay World Bank iyo sidoo kale hay'adda IMF-ta ama hay'adda lacagta adduunka waxay ka dalbatay lacag gaaraysa 50 milyan oo dollarka Mareykanka ah sida lagu qoray wargeyska Financial Times kaasoo inta badan arrimaha dhaqaalaha ka faalooda dowladda dhexe ee Soomaaliya waxay sheegtay in sanadkan ay weysay dhaqaalihii lagu kabi jiray miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya si loo socodsiiyo shaqooyinka ka dhex socda gudaha dowladda dhexe sida shaqooyinka wasaaradaha wakaaladaha talisyada ciidamada iyo sidoo kale wax kasta oo shaqo ah oo ka socda guud ahaanba dalka ay qarka u saaran yihiin inay istaagaan arrintan ayaa loo sabaynayaa in qaar ka mid ah wadamadii deeq bixiyaasha ahaa gebi ahaanba
ay iska diideen in Soomaaliya ay kabaan miisaaniyaddeeda lacagtan ayayna si degdega dowladda federaalka Soomaaliya u codsatay. IMF-ta waxaa la filayaa ama World Bankiga in si degdega lacagahan loo soo gaarsiiyo dowladda dhexe ee Soomaaliya si loo socodsiiyo shaqooyinka waqti xaadirkan ka dhex socda gudaha xafiisyada dalka oo ay ugu horeeyaan wasaaradaha iyo sidoo kale xafiisyada madaxtooyada iyo ka ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaan hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya shaqooyinkii ay qaban lahaayeen. arrintan waxay imaanaysaa xilli madaxweynaha Soomaaliya dhawaan qaramada midoobay khudbad uu ka jeediyay uu ku dalbaday balaayin dollar isagoo yiri Soomaaliya waxay u baahan tahay dhaqaale degdeg ah. madaxda Soomaalida si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bilihii ugu dambeeyay lagu eedeynayay in lacag badan uu luusaday oo malaayiin dollar ah sidoo kale inuu xaraashtay dhulkii danta guud. waxyaabaha lagu eedeynayay madaxweyne Xasan ayaa waxaa ka mid ah in markasta uu toogsi taga caalamka ama marka uu ka qaybgalayo shirar caalami ah inta badan uu Soomaaliya baahideeda soo bandhigay iyadoo adduunka hadda Soomaaliya ugu timbirisan yahay wadan faqri iyo gaajo isugu darsan tahay. laakiin dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaaba waxay tahay dowlad banaanka taalla taas oo had iyo jeer caalamka u bandhigaysa dhibaatada dhaqaale ee ka jirta gudaha dalka. Soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka caalamka ugu sabolsan laakiin waxaa leeyahay Soomaalida ayaga ayaa gacmahooda arrimahan ku doontay. haddii dowladda federaalka Soomaaliya waqti xaadirka dhaqaalahaas ay hesho waxaa leeyahay wax badan ayaa kala furmi doona oo xitaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka ayaa laga dareemayaa wasaaradda xooggan. magaalada Garowe in dhibaato badan dadku ay ku qabaan oo marka meheradaha shaah laga dalbado inta badan lacagaha lala dhunto taasi oo dhibaato ku ah ayaa leeyahay ganacsatada yaryar ee haweenka u badan ee inta badan iibiya shaaha kuna iibiya bibitooyinka iyo maqaaxiyaha aadka u yaryar. arrintan ayaa waxa ay tusaale u tahay wasaaradda ka jirta dalka in ay tahay mid xarkaa goosatay. waynu arki doonaa qodobkan iyo waxyaabaa ka soo kordha. ugu dambeynna magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka socda kulamo kala duwan oo u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo golaha wasiirada iyo xitaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaana kulamadan looga hadlayaa safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagayo dhawaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee 37 sano kadib booqda deegaano dhaca waqooyi bari Soomaaliya. magaalada Laascaanood ayaana si weyn looga sugayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa uu qayb ka yahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. wararka qaar waxay sheegayaan in laamaha amniga si gaar ah taliska guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kan booliiska ay iska wareysteen suurtagalnimada in ciidamo ka tirsan booliiska, nabad sugidda iyo militariga Soomaaliya laga dejiyo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. madaxweynahana waxaa la siinayaa talooyin kala duwan oo ay qayb ka yihiin in amnigiisa uu ka taxadaro maadaama magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Somaliland waqti xaadirkan wixii ay doonaan ay ka samaysan karaan sida ay xoguhu tilmaamayaan. Somaliland ayaa waqti xaadirkan waxay diidan tahay imaashaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu imaanayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxaana Somaliland dhowr jeer ay ku hanjabtay in gebi ahaan bay dhulka soo dhigi doonto diyaaradda madaxweyne Xasan Sheekh. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la sheegay inuu la hadlay madaxweynaha si Khaatuum isagoo ku wargeliyay in wax kasta uu ka muhiimsan yahay amniga madaxweynaha qaranka. sidaas daraadeed laga maarmaan ay tahay in Laascaanood maalmaha soo aadan laga dejiyo cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan sida booliiska, nabad sugidda iyo militariga si loo xaqiijiyo amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xalasow kaasi oo ka degaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Laascaanood si guud waxaa laga dareemayaa diyaargarowgii ugu dambeeyay xafladda caleemasaarka madaxweyne Cabdiqaadir Cali Firdhiye iyo ku-xigeenkiisa abwaanka kaas oo lagu casumay madax badan oo Soomaaliyeed sida madaxda maamulada dalka ka jira. inkastoo Puntland iyo Jubbaland aysan u badnayn in kulankaasi ama madashaasi caleemasaarka madaxweyne Firdhiye ay tagaan maadaama waqooyi bari u arkaan maamul la doonayo in lagu dhibaateeyo iyaga. Siciid Dani ayaa kala horeba iska diidanaa dhismaha maamulka waqooyi bari waxaana awoodiisa isugu geeyey sidii maamulkaasi loo burburin lahaa ama xitaa deegaano cusub looga qabsan lahaa isagoo xitaa la heshiiyey dhinaca Somaliland. waxyaabaha lagu heshiiyeyna waxaa qayb ka ahayd in la burburiyo xadka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka samaysay sida iyagu hadalka u dhigeen inta u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland. sidoo kale Somaliland ayaa si cad waxay u sheegtay in Sool bari deegaanadeeda ay ka tirsan tahay hadhowaataa hase dheeraatana goordhow ay ku soo celin doonaan gacanta ciidamada militariga Somaliland. Somaliland ayaa laga saaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sanado ka hor waxaana la xusuustaa dagaal adag inuu ka dhacay xerada Gooja Cadde lagu magacaabo kaas oo sababay in militariga Somaliland looga adkaado deegaanada Sool bari
kadibna dowladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaasi ka dhistay maamul loogu magac daray Waqooyi Bari inkastoo maamulkaasi uu muuqdo mid aan sii shaqayn karin maadaama Sanaag oo idil waqti xaadirkan laga haysto oo Puntland iyo Somaliland ay gacanta ku hayaan qaybo ka tirsan Sool si lamid ah Somaliland ayaa gacanta ku haysa iyo Puntland oo Boocame iyo deegaano kale ay Puntland haysataa si lamid ah Somaliland Caynaba iyo deegaano kale iyo degmooyin muhiim oo ka tirsan gobolkaasi ay haysataa tugdheer markii la yiraahdeen inta badan Somaliland ayaa gacanta ku hayso oo kaliya si Khaatuum waxay ka joogaan degmada Buuhoodle oo kaliya safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana la filayaa in toddobaadkan dhamadkiisa uu ku tago magaalada Laascaanood boorarkiisa ayaana gudaha magaaladaasi la suray laakiin waxaa jira cabsi xoogan oo iyo sidoo kale digniino la gaarsiinay madaxweyne Xasan oo ku aadan in gabyaan uu ka baaqsado safarka uu ku tagi karo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wayna arki doonaa qodobkan iyo waxyaabo ka soo kordho gudaha intaas ay ku soo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya ilaa dhamaadka dad nala soo gaartay waxaan ku xusuusinaa in channelka subscribe inoo sarta qaybna aad ka noqoto saaxiibada ku xiran aan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 20,000 oo subscribe kaliya safarkeenan adiga ayaa ka dhiman ee sulka saar oo subscribe inoo sarta channelka mahadsanidin